عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ابتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. أيها الإخوة والأخوات، waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaad la kulmo. Allahna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa maamulka masaajidka iyo mashaayikhda culummada sheekhayga iyo saaxiibkayga Sheekh Cabdilqaadir canba ku magac dheer dabcan canba ana ma aragna halkan, laakiin ilaahi subxaanahu wa tacaala inuuna wada xifdiyo dhammaan. intaa kadib kalimaadkan kooban een ka dhihi doono annafaxaat ramadaaniya ama udayga soonka waa asal ahaan waa 16 fadhi oo aan ramadaanka ka diyaarinay aniga iyo nin saaxiibkay Sheekh Cabdalla Xambali la yiraahdo oo YouTube-ka ku jirta. qofka doonaya marka inuu mawduucan uu ka sii dhargo annafaxaat ramadaaniya isagoo 16 xalaqo ah uu ku jira YouTube-ka, waad ka sii faa'iideysan doontaa wixii faahfaahina. hase yeeshee ayadoo kooban baan doonayaa inaan idinla wadaago biidnillaahi tabaaraka wa tacaala, si aad u kooban haddii aan la yidhaahdo. fadhiga koowaad ama qeybta koowaad waxaan doonayaa inaan kaga hadlo soonka maxaa lagu yidhaahdaa luqada iyo sharciga. soon waxaa lagu yidhaahdaa shay laga afaysto oo laga fogaado oo laga dheeraado al-imsaaku can ishay. waxaa u daliila hooyadeen Maryama binti Cimraan radiyallahu ta'ala canha markii ay wiilkeena ama nabi Ciise ay dhashay, nabigaas ilaahay doortay subxaanahu wa ta'ala oo ay ka baqday dadku inay ku ceebeeyaan maadaama uusan aabba lahayn. waxaa lagu yidhi waxaa dhahdaa innii nadartu lirraxmaani sawman falan ukallima alyawma insiya. taasoo daliil hadda anagu ujeedadeenu ay tahay inaanu dhahno waxaa la yidhi waxaa qaba maanta waan ka soomanahay, afkaygana waan qabsaday, mana raba inaan qof la hadlo. nadartu lirraxmaani sawman al-imsaak can ishay falan ukallima alyawma insiya. sharciga waxaa lagu yidhaahdaa al-imsaaku can ilmufatiraati min tuluuci alfajri الsaadiqi ilaa guruubi الshamsi maca niya. saas ayaa lagu soo koobaa xagga sharciga.